waxyaabihii aan kala kulannay waxaa ka mid ahaa markii koowaad in la gelinayay dhalinyaradii meesha joogtay waxay nagu dhaheen waxaa jira qol la yidhaahdo qolka aidiska waa qol halis badan xisbiga ucud waan u mahad celinayaa waxau ahaa xisbigii keliya ee noo keenay hadiyaddii ugu qaalisanayd ee intii xabsiga aan ku jirnay runtii nala siiyey hadiyaddaasi xisbiga uu noo keenay waxay ahayd kutubta qur-aanka kariimka aad baan u akhrinay runtii ajarkaasina iyagu u socdaa wayna mahadsan yihiin markaan halkaa ka yimaado anigu waxaan ka mid ahaa saxafiyiintii goobta tegey ee lagu xidhay saldhiggan dhexe aniga iyo maxamed ilig ayaana lagu xidhay runtii saldhigga dhexe markii aanu tagnay waxaanu kala kulannay dhacdooyin kala duwan oo qaarkood qosol badan qaarkoodna runtii u baahan dareen in la ogaadana u baahan waxna laga qabto u baahan waxyaabihii aan kala kulannay waxaa ka mid ahaa markii koowaad in la gelinayay dhalinyaradii meesha joogtay waxay nagu dhaheen waxaa jira qol la yidhaahdo qolka aidiska waa qol halis badan runtii macna ahaan ayay iyagu u samaysteen oo ma jirin qol aidis qol uu ku qoran yahay laakiin qolaalkii ka mid ahaa xabsiga ayay qol ka mid ah ku tilmaameen qolkaasi markaa injir buu lahaa waxaana la gelin jiray qofka loo taag waayey iyo ka maaragtay yacni hawshiisu ay ku badato meesha waxyaabihii kale aan kula kalannay waxaa ka mid ah weydiimaha ugu badan ee saldhigga dhexdiisa la iska weydiiyey waxaa ka mid ah maxaa lagugu soo xidhay xillimaa lagu soo xidhay kiiskaaga maxkamad ma la geeyey yaa ku soo xidhay waxyaabahaasaa lagu weydiinaya runtii oo ma garanaysaa su-aalaha ugu badan iyo conversationka meesha ka dhex socda ay u badan yihiin xarunta CID da markiina la geeyey iyadu injir may lahayn laakiin cidhiidhi un bay ahayd sideeda kalena way wanaagsanayd booliiska iyo weliba dadkii kale ee meesha joogayna aad bay u wanaagsanaayeen oo si fiican bay noola macaamileen markaan intaa ka yimaado intii aan ku xidhnayn saldhigga dhexe aniga iyo maxamed ilig iyo waxaa ku jirnay ninka halkaa fadhiya oo faan la yidhaahdo iyo nin kale oo hadda isagoo xabsiga ku hadhay oo cabdiraxmaan cali khaliif la yidhaahdo oo ka mid ah saddexda wariye ee ku hadhay runtii habeenkii koowaad si fiican baan u seexannay habeenkii labaad ayaa waxaa noo yimid sarkaal sare oo ka tirsan booliiska iyo sarkaal ka tirsan ciidamada dambe baadhista ilig bay la baxeen dabeetana waxay la galeen qol aan saan nooga fogeyn nalooma ogolayn inaan daawano laakiin anugu luuq yar baan ka soo eegayay dalool yar si aan bal u ogaado xaaladdiisa maadaama uu saaxiibkay ahaayoo meel aan wada seexanaynay waxaa khasab lagu weydiiyey in uu furo teleefanadiisa oo basswordka ka saaro ilig wuu diiday arrinkaa wuu ka dagaalamay ilaa ay gacan ka hadal gaadhay waan baa la galay markii dambe ugu dambayn sidii ay doonayeen iyagu ayay wax u dhaceen oo teleefonkii baaswordhada way ka qaateen keligiisna kuma ay dhicin ee wariyaashii meesha waxa weeye lagu wada xidhay dhammaantood qaarna si sira ayaa loo baadhay teleefanadooda qaarna si cad ayaa looga qaatay taasina waa tallaabo sharci darro ah oo runtii u baahan in wax laga qabto oo ah waxa weeye qofku dembi wuu geli karaa dembiga laakiin afka iyo gacanta laga galaa ee teleefanada lagama galo teleefonkana dee kuma jirto dembi kuma jira ee qofka xogihiisa iyo sirihiisa gaarkaaba ugu jira damaanad waxa weeye qaadaysa in qofka dukumiintiyadiisa iyo howlihiisa siraha ee khaaska ee ugu jira inaan la faafin ama aanay meel kale ka bixinna ma jirto si dhayala lagaga furan kadibna waad ka soo bixi marka dhammaan dhacdooyinkaasi waxay u baahan yihiin dhacdooyin in wax laga barto oo runtii laga digtoonaado dhallinyarada saxaafadda ee aan ka mid kahay iyo qof kasta oo muwaadin ahina uu ka digtoonaado ayay tahay ugu dambayn waxaan guddoomiye kaa codsanayaa munaasabaddan caawa markay noo soo gabagabowdo inaynaan gelin sawirro farxad leh oo aynu galno sawirro dareen muujinaya dareenkaas oo aan la qaybsanayno saddexda saxafi ee ku xidhan meeshii aan ka soo baxnay afarta saxafi aan dhehee meeshii aan ka soo baxnay ku xidhan weliba waxaan xusayaa saxafi cabdi Germany waxa uu ku xidhan yahay goob aan loogu talagelin in dadka rayidka lagu xidho goob aan cidna soo booqan karin madow la geli karin oo aan qaarkayago raggii meesha ku xidhnaa ay indhaha ka soo qaadeen oo ay noo sheegeen ninkaasina wuxuu u baahan yahay isagu laftigiisu in si gaara loogu gurmado saddexda saxafiye kale hadda xidhanna mudane guddoomiye waxaan kaa codsanayaa intii meesha aan ku xidhnayn xildhibaanaha dhaqdhaqaaqayay madaxweynaha uu ergoonayey nala baaxaadegay dabeetana intaas 12 farxad kula soo baxay
waxaan kaa codsanayaa adiga iyo haldoorka kale ee Somaliland inaad guntiga dhiisha u xidhataan oo saddexda afarta saxafiye kale meesha ku xidhanna qaab uun uga soo deysaan oo u gurmataan dhammaantiin waan idin mahad celinayaa ugu dambeynna waxaan codsanayaa sawirrada aan gelino inay noqdaan sawirro dareen leh oo aynu ku muujinayno caburinta lagu sameeyay saxaafadda Somaliland saxaafaddu waa laf-dhabarta bulshada iyo u dhaxaysa dawladda haddii iyagu meesha ay ka baxaanna dawladdu waxay doontay samayn kartaa dawladduna maaha kulmiye kaliya u cid biribo iman wadani biribo iman kuwa kale biribo iman dhammaantoodna waxay u baahan yihiin cid ka ilaalisa shacabka aad baad u mahadsan